Diseembar 14 sanadkii tagay dil ka dhashay isku dhac dhexmaray ilaalada Cabdisamad Macalin Maxamuud wasiir hore ee ciidamada booliiska Dhuusamareeb ayaa lagu soo eedeeyay dilkaasi inay ka dambeeyeen ilaalada wasiirka ee kala Cabdiraxiin Cabdullaahi Guuleed Karar Maxamed Cali Deeq Cabdullaahi iyo Muxudiin Siid Cali Xasan dilkaasi waxaa loo geystay mid ka mid ah ciidamada booliiska caasimadda Galmudug oo ku jira gaafmeer lagu xaqiijinayo amniga Dhuusamareeb oo xilligaasi martuu ku ahaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taliyaha saldhigga booliiska Dhuusamareeb ayaa maxkamadda kaga jawaabay sida ay wax u dhaceen xilligaasi waxaana ku jirnaa amniga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya joogay caasimadda oo yimid ayay damcaan oo hubka ka dhigno mid ka mid ah waan ka qaadno qorigii midkii kale ayaa ciidanka booliiska kula dhagan kii ayaa xabad laba nin oo kale la socotay xabad soo bilaabay xabadaa soo dhacday xabadii markay dhacday meeshii goob hameenna way ahayd oo adiga nuskii saac halkii saac meelahaasay ahayd taqriiban halkii qori markii laga qaatay ka bacdi meeshii xabadaa bilaabatay ninkii qoriga laga qaatana dhinacii ay jireen ciidankii raggii kale oo la socdo aaday intaas ka bacdi inay dhinacoodii xabada ka soo dhaceen ayaan anigu xaqiijinaa sida la ii sheego askar markaas goobjoogyaalo sida ninkii qoriga kula dhagay oo ninkii kale midkaan qoriga lagula dhagay maahane midka kale qoriga kula dhaganay soo sheego wuxuu yiri ninkii qoriga laga qaaday ayaa ii yimid qorigiiyo iga marooqsaday aniga ninkii iskula dhagay saaxiibkiisa hay sidaas oo xabada ku soo galay marka sidaas ayay sameeyeen wasiirkii hore ee arrimaha gudaha mid ka mid ah xukuumadihii dalka soo maro oo isna laga weydiinayo ogaalkiisa sida ay wax u dhaceen habeenkaasi ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida uu sheegay in xaalad qiimeyn ah ay ka baxday wixii xilligaasi oo goobjooga u ahaa maxaa la yiraahdaa haddaan dareemo shaki igu jiro baaritaan waxaan weydiinaya haddii shaki iga jiro CID iyo baaritaan midna uma direenay dad aan dad dhan wada aan isleeyahay waa xalisan kartaa iyo ahay dadka dhan laakiin waxa igu jirtay eedda lagu eedeynay Cabdiraxiin sax ahayn oo xabadaha dhacay iyo waxaas daba dhaafay ay mostly ka yimaadeen maxaa la yiraahdaa 30 iyo dhowr qof oo askar ah haddaad joogtid qofkii habeenkaas jooga loo sheego magaalada bar in gubitaan loo haystaa askar ka badan 30 iyo xogaa yaa muddo 15 daqiiqo 20 daqiiqo waxay u wadeen xabad aan kala go' lahayn oo dhinac walba ka soo dhacaysay meesha xabadu ka dhacaysay oo laamiga geeskiisa ah ka sokowna dhinaca dawladda hoosena xabadaha ka soo dhacay dhinaca bangiga xabadaha ka soo dhacay dhinaca booliiska saldhigga booliiska xabadaha ka soo baxay meel lagu qiyaasi karo oo aan dhihi karo maxaa la yiraahdaa aan ku cabiri karin ma jirin haddii ahaan lahayd laba qof oo face to face isaga horyimi waxun baan dhihi lahaa waxaan dhihi kari lahaa waxun baa isdaba dhaafay laakiin wixii meesha ka dhacay qofkii maqlaaya meel yacni ay ku dagaalameen ciidamo xoog leh ku dagaalameen ila muuqdeen taliyaha qaybta booliiska Galmudug oo isna ka mid ah dadka gadaal ka soo gaaray dhacdadan ayaa maxkamadda u sheegay in wasiirka uu ku wareejiyo qore mid ka mid ah ilaaladiisa ee ciidamada booliiska kala wareegeen laakiin ogaalkiisa xilligaasi aysan jirin wax dhimasho ah balse mar dambe uu ogaado uun tallaabo uu u jirsaday wasiirka kadib markaas wax la iima sheegin geeri ah oo meesha ka dhacdo mashala ama dhaawac la iima sheegin wasiirka u tii waxaan ku haddaan wax dhib ay sameesha oolin qor laga qaadayo askarkiisa laga qaadaya waxaan ku niri askariga qorigaagana waa kan isku dhacayna ahaayeen raali ahaa saasan aan uga dhaqaaq afar talaabo dhowr talaabo markaan ka tegey aan ka dhaqaaqay askarta kamid wuxuu yartay meesha dhimasha ka dhacday wada ogeyn marka waxaan kama warqabo yaa askari booliiska meesha lagu dilay waa soo laabtay wasiirku meeshii aan hadda uga dhaqaaqa taagan aan imi daaqada baabuurka uu ku jiraan iska fur daaqada marka iska furo wasiir leeyahay raba inaan iraahdo askarta waxay dileen booliis anoo dheer raba inta wasiir marka ay meel waxyar ii jirta askar isroorsanay iyo xabada ka dhaceen waxa ku dhaawacmay askari ilaalo ah Cabdisamad ka dhaawacmay midna qoriga kula dhageen
intaas waayo inta anigu dhacda aan ka ogahay meesha ka dhacday kabacdi cabdisamed dhinaca madaxtooyada loo waday oo baawar cabdullaahi madaxtooyadu leedahay markii noo yimid aan ku darnoo nidhi hada waxay dhaawaceen waa la qaaday isbitaalaan geynay habeenkii intaas lagu kala hoyday ciidamada ka kala tirsan ilaalada wasiir cabdisamed macalin maxamuud iyo ciidamada booliiska dhuusamareeb ayay maxkamaddu dhageysatay markhaati ahaan dhinacyada dacwadda ayaa si siman su-aalo u weydiiyey markhaatiyaasha maxkamadda la hor keenay labada dhinac ee dacwadda ayaa maxkamadda si wadajira uga codsaday in dib loogu dhigo fadhiga maxkamadda maadaama mid ka mid ah eedeysanayaasha uu ku xiran yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo wejiyo kala duwan loo madalsan yahay waxaa la aqbalay dalabka labada dhinac ee xeeraalinta iyo qareennada ay ku dalbadeen in maxkamadda dib loo dhigo si mar kale laysugu soo laabto waxay maxkamaddu amraysaa in xeeraalintu ay keenaan bacdamaa laga dhaqaajiyey taliyaha madaxtooyada si loo wareysto si loo ogaado falka dambe sida uu u bilowday wax looga ogaado in xeeraalintu ay keenaan sidoo kale maxkamaddu waxay go-aamisay in labada eedeysane ay xirnaanayaan intii laga gaarayo go-aan sidaa darteed maxkamaddu dib ayay u dhigtay kiiska cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka dhuusamareeb